halkan waa xarunta maamulka hawada ee magaalada Muqdisho. Galinkii dambe ee maanta ayaa si rasmi ah loogu dhameystiray maamulidda hawada dalka. Kani waa qalabkii iyo shaqaalihii ka howlgalayay xaruntan oo si rasmi ah u gudanaya waajibaadkooda qaran ee maamulka hawada dalka. Maxamed Cabdullaahi Salaad Omar waa wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada, waxa uu goobjoog ka ahaa madasha kadibna si rasmi ah ayuu u furay maamulka dhameystiran ee hawada dalka. Obriyo Lobas waa madax howlgelinta hay'adda ECAO, waxa uu muujiyay in 27 sano kadib ay muuqato isku filnaansho Soomaaliya ay ka gaartay dhinaca maamulka hawada. After many years, almost 25, finally the Somali government is receiving back the airspace and is controlling airspace from Mogadishu. Wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada Maxamed Cabdullaahi Salaad Omar ayaa xaqiijiyay in si dhameystiran loo howlgeliyay qalabka maamulka hawada dalka. Xafiiska Nairobi shaqadii uu waday la socotay garab socotay xafiiska Muqdisho waa la soo afjaray, waa la xiray xafiiska Nairobi. wax shaqo ah oo ka socda haba yaraatee ma jirto. xafiiska Muqdisho ayaa hawada Soomaaliya laga maamulaya ka bilaabata saacada si fuul ah iyadoo xafiis kale oo laga maamulay aanan jirin. sidoo kale wasiirka ayaa rumaysan oo kalsoon ku qaba in shaqaalaha maamulka hawada ee Muqdisho loo soo wareejiyay ay ku filayeen maamulada qalabka si buuxdana loo furay hadda. soo wareejinta hawada waxaa garab socda projectyo kale oo lagu tababarayo shaqaalaha, lagu abuurayo shaqaaleyn cusub, lagala wareegayo ajnabiga hadda ka shaqeeya hay'adda ka soo guuray Nairobi bedelkoodii shaqaale Soomaaliyeed. marka alxamdulillah waxay noo maraysaa meel aad iyo aad u wanaagsan. shaqaalihii sharciyada iyo wixii idil waa inoo diyaar meel wanaagsan ay noo marayaan. shaqaale cusub Soomaali ah ayaa waxay qabsanayaan meelaha maamulka ugu sareeyay hay'adda iskaama hadii wixii ka dambeeyo insha Allah taala. marka si wanaagsan ay noogu socdo. 28 December ee sanadka 2017 ayay ahayd markii xafiiskan madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu xariga ka jaray. waxaana maanta labadii duhurnimo xilliga Geeska Afrika uu noqday xafiiska kaliya ee laga maamuli doono hawada dalka, isla markaana maamulka wasaaraddu uu ku tilmaamay la soo wareegista hawada Soomaaliya inay la mid tahay maalmaha xurriyadda dalka oo kale. Cabduqaadir Cali Axmed, warbaahinta qaranka, Muqdisho.